daawadayaasha qiimaha badnoo ku soo dhawaada muuqaalkiina xiga ee toosan technical 90% bulshadu waxay isticmaashaa mobile data ama lafta internetka haddii uu ahaa lahaa Somnet ama Somtel iyo wixii la midka ah oo internetka aad ka adeegsato mala kulantaa mararka qaar inaad MB ama GB aad ku shubato laftaada isla markaana si degdeg ah ay kaaga dhamaato muuqaalka waxaan kugu soo gudbin doonaa afar meel oo ay sabab u tahay in si xawli ah teleefankaaga internetka oo u isticmaalo haddii uu ahaa lahaa MB ama GB sidoo kale waxaan kugu tusayaa si aad gabi ahaanba isaga xanibi lahayd afartaas meel si aad u dhaqaaleysato internetka teleefankaaga adigoon wax application dheeraad ah la soo degin haddii aad danaynayso muuqaalkan adigaan kuu duubee daabasho wacan qodobyada afarta aan idin soo tiriyay waxa ugu horeeyay Google Play Store-ka mararka qaar waxaad aragtaa in application qaar oo Play Store-ka aad kala soo degtay inay iskooda isku update garayaan saad ugu xirto dooro Play Store-ka waxa ka dooranaysaa menu barka ama saddexdaas ilig ee qaybta sare marka doorto kadib waxaad dooranaysaa setting marka setting doorto kadib waxaad dooran doontaa auto update apps ayaa dooran doontaa inta kadib saddexdan option ay ku siinayaa waxaad dooranaysaa don't auto update apps labadaas kale marka internet wifi heshid waad u furan kartaa qaybta labaad waa WhatsApp-ka saad isaga xirto WhatsApp xulo saddexda ilig sare xulo setting-ka ka xulo inta kadib waxaad imaanaysaa data and storage usage labada meel aan calaamada idin saarnay meesha ugu horeyso waa when using mobile data marka teleefankaaga aad datada lambarka teleefankaaga ayaa datada internet marka isticmaalaysid yani waxaad aragtay internet marka isticmaalaysid in sawir walbo ama kale audio walbo ama video walbo oo ku soo degayo marka adaa u baahan tahay in intaas ay ku soo degaan fix saaro intaadan u baahan in ka qaado marka wifi oo kale saddexdaas waa dalban kartaa haddii wifi la'aan aad tahayna oo internet datadaada u yahay siisan lacagta kaga dhamaanin fikta dhamaantood waa qaadi kartaa aan ahaan hadda mid ka rabaan saarana mid ka rabaan waa ka tagaa qodobka saddexaad waxaad tagaysaa setting waxaad ka xulinaysaa about phone markaad about phone aad dhahdid kadib waxaad xulin doontaa software information markaad xulato waxaad tagay build numbers and build number ayaa waxaa ku celinaysaa 7 mar ilaa 6 mar si uu kugu soo muuqdo developer option waa ujeedaa developer option ku dhufanaa developer option markaa ku dhufatid kadib waxaa ka xulan doontaa listigan aadka u tirada badan select debug app select debug app marka meeshan waa softwareada intooda ugu badan ee datada kaa dhameeyay intay ku jiraan midkaa rabin waa iska cancelaysaa waa iska xiri qodobka afraad waa software updates markaa ku dhuftid software update auto download of wifi haddii ku tahay enable disenable ka dhig sidoo kale waxaad ka xiraysaa waxaa imaanaysaa developer option waxaad tegaysaa auto update system labadan meel haddii kaa xirayin teleefankaaga hal MB ma ku baxayo aad afartii qodob intaas ay naga eg tahay fadlan janaalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar fura calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho macluumaad dheeraad ah la wadaag asxaabtaada intaa wixii ka dambeeyay isii faraxsanaa